aad baan idin salaamaya saaxiibada meel kasta ha joogtaan kusoo dhawaada saaxiibada muuqaal kooban waynu ku eegi doono farxadda iyo weliba nolosha cusub qadarkeeyo iyo weliba dumashadeena Fartuun Cabdullaahi Cali guurkiina guri khayr allow idinka yeel saaxiibada meel kasta ha joogtaan waxaan idin soo gudbin doonaa saameynta inta badan baraha bulshada ay ku leeyihiin lamaanayaasha iminka kusoo biiray nolosha waana Fartuun Cabdullaahi Cali weeyaan waliba fanaanka codka dabacsan ee Qadar Ibrahim Keyo saaxiibada waxaan idin soo gudbin doonaa xogta noloshooda sidoo kale waxa aan barnaamijka ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedkooda oo dabcan dhanka nolosha ku saabsan nolosha waa farxad waa hadii aad haysato weeyaane qof aad ku qanacsan tahay markasto oo dabcan noloshaada inta badan quseeya dumaashi Fartuun Cabdullaahi Cali waliba ninka odayga ah Qadar Ibrahim Keyo maanta ayaa Muqdisho meherkooda ka dhacay waxaana markaasi aynu idin leenahay dhamaanteena markasto noqda kuwa markaasi isku raaga oo baad qeyr qaba kala hela saaxiibada kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-gaada leenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena laagtan waa caawisaan waana mahadsantiin wayahay saaxiibada meel kasta joogta markale aad baan idin salaamaya runtii baraha bulshada iminkan aad baa loo hadal hayaa Qadar Keyo waa is xoreeyay oo dabcan wuxuu guursaday dumashadeena Fartuun Cabdullaahi Cali meherku wuxuu ka dhacay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho Qadar Keyo dad badan ayaa isweydiinaya oo dabcan waqtigii ayuu guursanaya dad badan ayaana dabcan isweydiinaya muddooyinkii ugu dambeysayba laakiin iminkan ayaa ah in uu ka baxay saaxada aadka u dhibka badan ee la yiraahdo kelinimo ama iskaabalnimo weeyaan marka Qadar Keyo wuxuu yiri aniga dad badan ayaan uga tagayaa kelinimada sababtay tahay kelinimada ma aha wax fiican inkastoo waqtiga iyo waliba calafka ay kala yihiin mid markaasi aan islahayn laakiin waqtiga hays goro kadib maanta waxa dhacday in markaasi meherkooda uu ka dhaco gudaha magaalada caasimadda Muqdisho Fartuun Cabdullaahi Cali iyo waliba Qadar Ibrahim Keyo haddaba Fartuun Cabdullaahi Cali dad badan ayaa isweydiinaya baraha bulshada caan miyay ka tahay dad badan ayaa isweydiinaya maya laakiin Instagram ayay leedahay oo dabcan dad badan ayaa ugu jira dadka qaar way yaqaan dadka qaarna ma yaqaanan laakiin iminkan ayaa waxa leeyahay dabcan iska barta dumashadeena weeyaan hadii aad aragtaan Fartuun Cabdullaahi Cali marka Qadar Keyo wuxuu ka mid yahay fanaaniinta inta badan fanka ku soo biiray sanadka 2014 15 ilaa 16 xiliyadaasi waxaana iminkan uu ka mid yahay fanaaniinta aad kale oo jecel yahay sababtay tahay Qadar Keyo markaad maqashaan heesiisa ayaa ku soo dhacaya maankina sidoo kale Qadar Ibrahim dabcan Qadar Keyo ninka la yiraahdo runtii daadiisa waa 20 sano jir weeyaan sababtay tahay aad buu u daayar yahay ninkan odayga hadii dabcan 20 sano jir ku guursaday hadda maxaa diidaya saaxiibada dhowr iyo 20 sano jira in ay guursadaan haddaba dadka oo inta badan daada inkastoo ay tahay tiris ama wax la tiriye ay tahay laakiin markasta waxa fiican in aad hantiso qof markaasi dabcan markasta raaliye ku ah runtii marka tahay qof baraha bulshada caanka waxaad baadi goobaysaa waxaad raadinaysaa qof markasta ku fahmi karaya Qadar Ibrahim Keyo hadda ka hor 2017 xilli markaasi dabcan oo ku sugnaa gudaha Muqdisho mid kamid ah garoomadana dabcan lagu ciyaaro kubadda cagta oo ciyaarayay waxaan filayaa inay tahay beerta nabada waa la weydiiyay waxa la yiri gabar noocay aad guursanaysaa wuxuu yiri aniga gabar xijaaban gabar aad iyo aad markaasi u xijaaban gabar degan gabar aan hadal badneen ayaan jecelahay haddaba waqtiga haas goro maanta ayuu noqday inuu gabadhaasi helo waxaana leeyahay hambaliyo 100% waxaan idin rajeynayaa inuu alle markaasi hadiyad ahaan uu idinkaga dhigo wiil iyo waliba gabar marka saaxiibada meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya marka Qadar Ibrahim Keyo waa xoreeyay fanaaniin badan baa jira hadda aan weligooda gursan oo laakiin daahan markaasi dabcan ay ku yihiin ninka la yiraahdo Qadar Ibrahim Keyo sidoo kale baraha bulshada ayaa inta badan la wadwaday meherka dabcan meherka inkastoo macnaha maaragtay wax la sheegay sanahan 2 weeyaan waa iska caadi weeyaan dadka qaar waxay leeyihiin meherka Qadar Keyo naagti uu ku mehersaday aad bay u badan tahay marka muhiimaddu waxay tahay meherka iyo lacagta hal xabay taraysa malahan meherka iyo lacagta hal xabay taraysa malahan kaliya waxa markaasi wax taraya weeyaan nolosha iyo waliba isfahanka waliba
ilmaha uu alla markaasi ka siiyo. Sababta tahay malaayiin haddii laisku guursado oo dabcan noqoto in caruur la isku dhali waayo ama la isfahmi kari waayo waa khatar weeyaan soo maaha. Marka 100% in la qiimeeyo maha lacagta. Markasta waxaa muhiim ah berita ka maalin wax soo socda. Markasta waxaa muhiim ah maxaa imaan karaya. Hadda noloshu ma jirtaa mid isfahma, noloshu ma jirtaa mid markaasi kali laba. Intaasi ayaa muhiim ah. Marka saaxiibada meel kasta joogtaan aad baan idin salaamayaa. Qadar Kiyona waa usxirooyin ninkaasi dabcan waa xaroodaan iraade. marka waa ka saaxibada meel kasta joogtan waa ka dimaashideen Fartuun Cabdullaahi Cali waxa markaasi inuu leenahay mar kale waliba mar kale dabcan hambalyo saaxibada muuqaalkan intan ayaan kusoo gabagabeynaya. waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ga hadaleenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena laagta aad nagu caawisaan. waxaan sidoo kale to idin ka codsanayaa in markaasi nagu dheerigelisaan in aad YouTube-keena aad dabcan subscribe mar kale noo saartaan. waana mahadsantihiin.